إلهي بأن الحمد لله غينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي نسور قليل ساكا إنه بريجكا مغاية هرقيسا واه المهمة أما بريجكا سكوحلة لابد من مغاية وهديه وحيل السوق قادو نغالاهان مغاية وحيل يليه إن أينو مانت إتاغن هاي إن هوشي سبلاوانتو maaha uun in la dhagaxdhiyo laga dhaqaaqayo waynu bisankaynu maaragtay ku bilaabaynaa uun dabeetana insha allahu tacaala shaqada kumbaniga la siiyey bilaabi doonaa hawshan dayactirka bridgeka lagu samaynayo waxaa iska kaashanaya oo aqoon ahaan dusha kala soconaya hay-adda wadooyinka jamhuuriyadda somalilan tiimka BIU-da iyagoo dusha kala socda waddada baybaaska oo madaxweynuhu si gaara ugu xil saaray hawshan ay dusha ka ilaaliyaan annagu dowladka hoose ka ahaan xalliyaala wixii markaa dhaqaalo ay u baahnayd hawshan in la qabto ayay dowladda hoose iyaduna markaa bixinaysaa xil qaadaysaa mudnaan weeye oo bridgekani mudnaan ayuu u leeyahay howlaha horumarinta ee ka socda magaalada hargeysa intii la helayo bridgeyo kaloo cusub in magaalada lagu soo kordhiyana kan mudnaan baanu siinaynaa in maaragtay wixii ku keenaya dayac iyo dhibaato in laga hortago wax kasta oo la hayana waa loo horeeyaa shacabka reer somalilan gaar ahaan dadka ku nool hargeysa waxaan u sheegayaa cashuurtooda hadday soo bixiyaan in maalinba halka qabiil taa loogu gufeynayo loogu qabanayo berigii hore waxaa caado noqon jirtay in hay-ad yar loo soo baryo oo la idhaha hay-ad yar halkaa nagu gufeeya la idhaha baa dhici jirtay laakiin saaka waa aqoontaadii waa dadkaagii waxbartay injineeradaadii waxbartay ee hay-adaha kala duwan iyo laamaha kala duwan dowladda somalilan jamhuuriyadda somalilan ka socda iyo cashuurtaad bixiso laysu geeyey ayaa saaka shaqada lagu qabanaya oo waxaad leedahay waxaad tahay inaad ku faanto bixi cashuurta oo u bixi xilligeeda iyo wakhtigeeda si baahi walba iyo dhibaato waloo jirtada markaa halkaa wax lagaga qabto insha allahu tacala waxa wax lagu qabanaya waa cashuurta yar lagaa qaaday bridgekan hadda 6 sano ugu dambeysay oo ka hadlayn laakiin maanta waa ilaahayna hadii mar hadii dayactirkiisii dowladda hoose ay gacanta ku dhigtay bilaabaysana dhawaan insha allah laga kaashanaysa RDO-da iyo BIU-da wax badan runtii uma baahna laakiin ciidaas iyo inta la hagaajinayo weeyaan dadku weeyaan meedin inuu khatar ku jiro oo waxa weeyaan waa safe baabuurtooda dul mari kartaa dadkooda dul mari karaan wax dhibina ma jiraan anigu kulle marka dhismaad timaadiyo bridgada waa iska farxaa oo wax la qabanayo baan arkaa marka wax qabadkii inoo bilaabnay si dowladda hoose u bilowday loo socon doonta insha allah bridgada kalena waan dhammayn doonaa waxaan halkan kula wareegaynaa dayactirka ama dib u habeynta bridgekii hargeysa anagoo ah shirkadda cali warsamo construction company waxaanu ballan qaadaynaa in aanu tayadayada ta ugu wanaagsan dib u dhisno u habayno iyo welibana aanu ku darno wixii karaankayga ah aanu si fiican ugu habayno aanu soo celinno bilicdii wanaagsaneed dooxii lahaa iyo tayadii lahaa aanu intaanu karaankayga tahay aanu ku samayno wax kalena aanu ku sii darno aanu sii habayno wixii ranjiintii waxaana waa la samaynayaa waxaan halkan saaka iskugu nimidnay in dayactir weyn lagu sameeyo bridgeka koobaad ee magaalada hargeysa kaasoo iska kaashanaya unidka BIU-da RDO-da dowladda hoose iyo dhammaan laamaha ku shaqo kale waxaan rajaynaynaa oo baahi badan oo halkan ka jirtay in daboolaha haddii alla inta roobka ka horeysa waxaan ku jirnaa xilli abaareed waxaan ilaahay ka baryanaa in roobka raxmadiisa inoo soo dedejiyo inuu ilaahay ummadan oonka iyo haraad ka soo jabiyo